weight gain maanta waxaynu ka hadlaynaa insha Allah miisaanka baruurta dadka korta weightka okay iyo insha Allah waxyaabaha xal u noqon doona marka dadka ka cabanaya miisaan dheeraada oo jirkoodii saaran ayuu videogani insha Allah u gaaryahay arrinkaas aynu aad u faahfaahinayno waxyaabaha keeni karaya miisaanka noocyadu kala yahay miisaanka dadka koraya iyo insha Allah mid kasta wixii xal u noqon karaya adiguna insha Allah waxaan rajaynayaa inaad kala baxdaan ka faa'iido oo mushkiladu ku haysatay biidnillaahi tacaala xalkeedii aad wadadii loo mariyay cagta saarto insha Allah. So everybody welcome. Welcome to SCS TV show. Topic maanta guys saad ogtiin waxa weeye weight gain miisaanka insha Allah. Waan ogahay waan soo kala yaro horreysiyay waxaan hore idinku ori caatadaynu ka soo hadlaynaa laakiin waxaan siri mar haddii shalayto aynu ka hadalnay mowduucii caloosha xaydha qabsatay baruurta aynu israacino topican maanta oo noqonaya qaybtii ka insha Allah dhamaystiraysa biidnillaahi tacaala. So sorry guys dadka caatada ah insha Allah waa idin soo socda idinma ilaabin. Waayahay sidii aan uga hadalnay calooshii waan idin sheegay guys baruurta koraysa inay tahay Allahu musta'an mid sababo kala duwan keeni karayaan xalkeedina mid kastana xalkeedu uu noqonayo kii kala mid ka duwan waa fahamteen miisaanka jirkoo dhan koraya baruurta jirkoo dhan koraysaana waa sidaas oo kale guys sababo kala duwan ayaa keena sabab kastana waxay leedahay xal iyo wado loo maro waad fahamteen marka aqoon kororsiga noocana guys markaynu insha Allah badino aynu wadaagno dadkii waligoodu haystay in miisaan baa korayo waan culusahay jim baan tagaya haddana waxba iga dhici maayaan ama si khaldan buu miisaankii uga dhacaya haddana beritaad arkaysa kii durba ku soo noqday oo qofkii markii miisaankii haddana koray waad garateen oo dee sanado saa ula tacaala hadhowtana hadday doonaan isdhiiba oo u taag waaya. So guys way fiicantay insha Allah biidnillaahi tacaala inaad aad u dhagaysataan videoyada dhamaysataan si aad insha Allah faa'iidadii oo dhan ugala baxdaan oo aan laga boodboodin lagana degdegin. Okay sababaha fudud baynu ka soo bilaabaynaa haddii Ilaahay ka dhigo waxaa jira arrimo keena waxa la yiraahdo sudden weight gain Allahu musta'an markaliya adigoo aan filanayno inuu miisaan ku koray يعني qof iska normal ahaan jirtay ama qof iska caata markaliyo miisaan fara badan ku koray oo la dhibaatootay maxaa keeni karaya ka degdeg dadka u qabtaan sababo yaryar fara badan baa keeni kara guys. Number 1 waxa kamid ah uurka qofta dumarkii markay uur leedahay miisaan fara badan baa koraa so miisaankaasi guys dadka qaar bay ugu adag tahay inay iska ridaan dadka qaar bay waqti dheer ku qaadatay inay iska ridaan dadkii isku mid maaha jirkoodii isku mid maaha waad fahamteen marka haddii Ilaahay ka dhigo insha Allah gabadha uurka markay qaado haddii muddadii uurkeeda oo dhan dhakhtar gacanta ku hayo miisaankii loogu talagalay uu korayo hadhowtana insha Allah dee aqoonta lagu caawinayo siyaabaha ay isaga ridi lahayd biidnillaahi tacaala waa u fududaanaysa. So taas waa sabab fudud sabab kaloo keeni karta miisaan qofka degdeg u koro waxa weeyaan mushkiladda hypothyroidism oo ku soo baxda waan idin sheegay hyper waa tii too much ka ahayd hypo waa ta dhacsan markuu thyroidkaaga shaqadiisu dhacsan tahay taas way keenaysa miisaan fara badan qofkii inuu koro because thyroidku saan idin sheegay waxa weeyaan waa miisaanka hormones jirkeena so miisaanka hadduu kharaabo khalkhal fara badan baa ku imanaya jirkii taasina waxay keenaysaa miisaankaas iyo cillado fara badan oo kale oo qofkii ku soo baxa so taas haddii jirto sidaan xalay ba idin sheegay guys dhakhtarkiina insha Allah aad ugala xiriiro oo u taga biidnillaahi tacaala. Sababo kale oo keeni karaya baruurta xad-dhaafka ah obesity ayaa la yiraahdaa guys af Ingiriisiga
obesity waxa weeye baruurta xad-dhaafka ahee dadkii la dhibaataysan yihiin aanay garanayno waxa keenay ama muxuu ahaa say ilaalisay isaga ridaan aanay garanayn. dadka qaar ba haddaad weydiiso aad tiraahdo maxaa kugu keenay, qaar waxay ku odhan yacni waxa weeye maskaxda dadku markii yacni aanay macluumaadkii wada haynin, dad waxay ku dhaha waa hereditary, waan iskaga dhashay baruurta, maxay ahayd cudurdaar wada noocaasa. markaa guys waxaad ogaataan horta haddii qofkii miisaankii jirhkiisa loogu talagalay uu dhaafsiisan yahay cillad baa jirta. miisaanka jirhkaaga maxaad ku garanaysaa saxa ah? waxa kuu sheegaya dhakhtarka. waxaa la eegaya dherarkaaga, waxaa la eegayaa allahuma mustacaan da-daada, waxaa lagu sheegaya markaa jirhkaagani qiyaastiisu iyo da-daad maraysid xilligaa miisaanka ay qaadi karayso, because qofku iskama qaadi karayo miisaan kasta, jirhkiisu ma awoodi karayo inuu qaado. alright, so waa inay da-daada marba halkaad maraysid iyo dherarkaagu islahaadaan markay noqoto xagga miisaanka uu jirhkiisido. you understand? marka cillado fara badan oo kale oo keeni karayo obesity-ga ama baruurta xad-dhaafka ah guys waxa weeyaan thyroidki waan idiin sheegay, laakiin sideedaba hormonal imbalance. haddii hormoneskaagu khalkhalsan yihiin way dhacda inuu miisaanku xadka ka baxo. waad garateen, taa waad u fiirsan karaysaan. dhakhtar baa loo baahan lagala xidhiidho. horta in laysu soo baadhaa loo baahan yahay si dhakhtarkii uu kuugu sheego adiga miisaankaagan dheeraadka waxa kugu keenay. alright, waxyaabaha gudaha ka dhacaya ee miisaanka fara badan keena ayaan idin yara taataabanayay. hormoneskoo khalkhala, inflammation jirhkaagii ku maqan oo indhahaagu aanay arkayn, meel alaale meeluu inflammationkaasi ka socda. carabiga waa iltihaab, yani inflammation waxaan ku uri xanuun kastana inflammation buu ka bilaabmaa, laakiin cillado gudaha ah oo indhahaaga aanay arkin oo aanad garanayn oo kugu maqan oo xanuuna ayaa keeni karaya miisaanka. waxaa keeni karaya gut problem, mindhicradaada haddii mushkiladii jirto, because mindhicrada guys waxa ku nool bacteria fiican oo wax kala wada oo caafimaadka bini'aadamku yacni door weyn ka ciyaaraysa. bacteriyada fiican hadday ka dhammaato guys ama ku yaraato mindhicrada oo bacteriyada xun iyo waxaasi ku farabataan, mushkilado aan xad lahayn ayaa yimaada. calool xanuun, wax kasta markaad cuntay caloosha ku xanuunayso, musqushii aanad ka dhammaanayn, yacni subxaan allah. marka haddii cilladaha aad qabtaan guys miisaanna idiin raacsan yahay, please orda soo jeegareeya gutkiina insha allah, iyo bacteriyada mindhicrada iyo waxaasii soo jeegareeya. dadka dabadaha jooga si yaroo fudud bay usoo jeegarayn karayaan maasha allah. qof kasta waxaa loo baahan yahay inuu noloshiisa darso oo uu u fiirsado waxyaabahan aan idiin sheegayo. haddii meelunay kaa soo galaan, then waxaad fahmi karaysaa cilladda ay haysataa, baruurtan ay haysataa, halkay ka imanayso insha allah. sababo kale, caafimaad darada waxa keenunbaa keena miisaankana, ma ogtihiin? sababo kale oo keeni karaya waxa weeyaan guys maxay ahayd cunno xumo ama vitamins deficiency oo kugu dhacay. yacni noocyo vitaminada ka mid oo jirhkaagii ka dhammaaday way keeni karayaan in miisaanku koro, because khalkhal baa jirhkii ku dhacay. waad garateen, vitaminsku guys waxay kaa caawiyaan miisaanka jirhkaaga dabiiciga ilaahay kuugu talagalay inuu halkiisii joogo. miisaanka lagugu talagalay markuu halkiisii joogo, that means caafimaad ayaa kaa muuqda. okay, laakiin haddii miisaanku kaa dhaco oo caato siyaada aad timaadona caafimaad daraa jirta, haddii baruur xad-dhaafi ku kortona caafimaad daraa jirta. cilladaa keenaya. cuntadiina iyo vitaminskiina u fiirsada. hadday wax khalkhal ku dhaco oo hoos u dhacaan, u naaxayo qofku, because wuxuu cunaya waxyaabo tayo xun. cuntooyinka tayada xun oo dhanna guys waa lagu naaxa. okay, way jaban yihiin. waxa weye dadka yacni aan awoodin oo dhammi waxaas iska cunaan, dhibtaas waa wada haysata. inflammation bay ku samaynayaan, baruur bay ku samaynayaan. maxay ahayto guys dadkina iskama fahmayaan. sababo kale oo keeni karaya guys hore waa iga maqasheen, xanuun oo dhanba
stressku wuu keena weight gain obesity dadku iska naaxa markuu stressku ka farabato haddaad aanad seexanin oo hurdadaad xunto habeenkii soo jeedid miisaan wuu ku koraya waan idiin sheegay hurdada waa lagu caatooba miisaanka dheeraadka ku dhaca caato ma noqonaysid dee xanuunsanaysa laakiin wixii dheeraadka kaa dhacaya markaad soomaysid cunto fiican cunaysid si fiican u seexanaysid miisaankaagii lagugu talagalay ayaad fadhiisanaysaa waa garateen markaa u fiirsada guys baruur baa i korto jim baan tegaya dhagaheenay ka fara badatay hal la joojiyo caloosha waxaa kaa soo saaraya xaydhaha dheeraadka jidhkaaga waxaa xaydhaha dheeraadka kursi yacni u korayso kullu guys waxa weeyaanu waa waxyaabaha aan idiin sheegayo ee loo baahan yahay in loo fiirsado aanay cidiba eegeyn okay jimka haddaad tagtid waxaan ku odhan riwaayad weeyaan waddankan sheegaya anigu weli maan tegin jim waddanka ah okay xoogaa jimo kuwa biraha la qaadqaado guriga waa ku haysta oo xagga muruqa u naasiraado ku dhis laakiin anigu walilaahi alxamd yacni miisaankaygu ismuu bedbedelin ilaa markaan teenager ahaa intanun baan ku dhadhowahay in yar ayaa i kortay miisaan intaasna waxa weeye guys yacni waxaan idiin sheegay 10 sanaad joogtidba guys waa inuu miisaan yar oo dheeraadi ku koro yacni ahaan maysid aad markaad 15 jir ahayd no 25 waa isbedelaysa 30 waa isbedelaysa waa hakada okay laakiin markasta da'daada iyo size-kaaga waa inuu miisaankaagu islahaadaan isu miisaanaadaan insha Allah sababaha u dambeeya ee keeni karay miisaan ku kora waxaa ka mid ah guys adoo aad cuntadaada u badan tahay runta la isu sheego de haddaad tahay qof cunto jecel oo xilli kasta waxaan ku wax iska cunaya oo dadka la yiraahdo afka ee gacanta ma kala saaran haddaad tahay of course miisaan wuu ku koraya khasab miisaan wuu ku koraya maxaa loo baahan yahay qofku guys inuu 2 jeer ama 3 jeer wax cuno 8 saacadood gudahood oo si fiican uu cuno wax nafaqo leh jirkii 16 saacadood oo isugu dabaqabadana aanad waxba cunin laakiin cabitaan caafimaad qabaad badsato oo aan sonkor yaxba lahayn okay marka saa u noolaato lifestyle-kaaga aad hoos u eegtay diristo waxaan dheeraadku kaa dhacaya okay haddaad macaan jeceshahay dadka qaar baan cuntadaba ku fiicnayn una macaankuun cuna okay junk food haddaad tahay dadka khasab miisaan wuu ku koraya maxaad filanaysaa ee kale waad garatay markaa guys u fiirsada aad yacni waxaan ku odhi dhagahaygu waxa uga fara badanaya sidaan sagaridi miisaanka sidaan sagarida walaalayaalay mushkilad xal looma raadiyo adigoo horta wixii sababay mushkiladda aan soo ogaanin waayo mushkiladdii markay halkan ku hor taalo marka aanad fahamsanayn wixii keenay marba meel baad u carariyo xalaad ka raadin kana maaha kanay anfici waa ayaad ku jiraysaa okay mushkiladaada waxa dhici karta imka 100 qof oo miisaan koray ka cabanaya ayaa waxa dhici karta sababaha ku keenay miisaankaas inay kulligood kala duwan tahay oo aanu qofna qof la mid ahayn mar oo loo baahan yahay qof kasta xalkii inuu meel kale ka raadiyo markaa cagaha dhulka la dhigo darsa hadalkaygu haydin soo gaadho walaalayaal si fiican insha Allah u maqla hoos isu eega maayad macaan jeceshahay miyad cuntadaad badsataa maaya habeenkii baad soo jeeda ma stress baa ku haysta ma thyroidkaaga khalkhalsan hadduu thyroidku khalkhalsan yahay hormoneskina waa khalkhalsan yihiin waa garatay ma genetic baa way noqon karta guys genetic hereditary wax la isku dhaldhalo reerku haddii jirkoodii wax ka ciladaysnaa sababaya baruur inay qabsato jirkii degdega jiinka waa la isu gudbin karaya guys waa dhici karta waa fahamteen markaa guys fadlan fahmi waxaasoo dhan ugu dambeyn waxa weeyaan aqoon darri dadkii ka haysa waxa miisaanku kugu korayo aqoon darri ka haysa wadada loo mariyo xal laga raadinayo ayaa walaalayaal keenaysa rafashada inuu qofkii ku rafto muddo aad u dheer siduu isaga ridi lahaa miisaankan as soon as isla markaad hesho aqoontii xalkiinaad ku dhaqaaqdo aad xalkii ugu dhaqaaqdo si daacada natiijadii aad rabto wad helaysaa okay
so ku celceshada videoga guys waa idin soo gaagaabinaya insha Allah saan idin uga caajisin biidnillahi tacaala. And I hope guys inaad ka faa'iidaysateen wixii su'aalo ah wixii comment ah ku soo qoro fadlan comment-ka biidnillahi tacaala. Videogii shalayto iyo videoganba wixii su'aalaad soo gudbisaan insha Allah video kale ayaan kaga jawaabi oo oranaya su'aalihii miisaanka cabashadii miisaanka laga soo gudbiyay. Okay, soo gudbiyo walaalayaal insha Allah. aadna waa idin salaamaya ka faa'iideysi fiican insha Allah. waa 4 salaadii casar insha Allah marka loo diyaar garoobaya waxaan ku ori nail polishes kan iyo waxaan soo marmarsaday iska soo biinay waxaan dhan waa la soo dhaqay waa videoga waxa soo tacab loo soo galo wallahi alazim laguma baxay meelna laguma tagayo waa garateen. So guys, thank you very much dadka which indhaha ka abuse garayn weeyaan si ma sha Allah san usoo fariiso meesha biidnillahi tacaala. So guys, aad baan idin salaamaya. Like-tiha ilaabina insha Allah, share-ti WhatsApp-ka iyo Facebook-yadiina personal-ka ah insha Allah. Intaan videoga dambe ku kulmayno, thank you very much and bye bye.